السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan ka hadlo video la ii soo diray but aan chance u waayay but now ayaan rabaa inaan ka hadlo wax ka iraahdo. videogan waxa weeye wuxuu ka hadlayaa fanaankeena weyn ee codka dahabiga ah leh, codka macaan Qamar Suugaani ayuu ka hadlayaa oo laga jabsaday, laga xaday, lagala wareegay YouTube-kiisi ay ugu jireen wax alla wax uu lahaa heeso. haddaad ku qorto YouTube-ka heesihiisi ma helaysid. anaa try gareeyay waa waayay. waxaa arkaysaa just dad soo qaatay heesihiisa oo ayaga soo gashaday YouTube-yadooda. ma helaysid isaga account-kiisa uu leeyahay oo Qamar Suugaani ku qoran tahay oo heesihiisa ku jiraan. ma helaysid totally, waa laga xiray, way ka close gareeyeen. I don't know qofka ka close gareeyay, laakiin dadka waxay sheegayaan in ay xaaskiisi hore ay ka close gareysay, YouTube-kiisi kala wareegtay, ka xirtay. I don't know sababta ay u sameynayso waxaas. labada qof way kala tagtaa, laba qof wayna isguursadaan, wayna kala tagaan. labadaba allaa baneeyey, ilaahay isagiina abuurtay oo aanu nahay bashar isaga uu leeyahay addoommadiisa ah ayaa guurna baneeyey, furiinna baneeyey. ilaahay haddii uu xun yahay furiinka, ilaahay ma uusan baneeyeen, waayo wuxuu u baneeyey isagoo xun in laysfuro ay xun tahay. haddana ilaahay wuxuu u baneeyey waxaa weeye wax ka weyn intay iman lahaayeen, dadku intay isdhibaatayn lahaayeen, waxaa weeye in la kala tago si loo kala ammaan helo, si loo kala nasto, si maxaan ku iraahdaa loo kala badbaado, labada qof loo kala badbaadiyo ayuu ilaahay u sameeyey furiinka. balse furiinka waa wax xun, ma fiicna, laguma degdego, waana laguu sheegaya ha ku degdegin, furiinka baa lagu leeyahay. anyway gabadhaas way kala tageen. waxaan ogeyn inuu guursaday gabar cusub, Rayaan Bajaaj la yiraahdo, TikTok caan ka ahayd iyo social mediaha. gabadhaasuu guursaday, maasha Allah, waa ku faraxsanahay. waxaa la sheegayaa in uu ilaahay maasha Allah awlaad uu siiyey oo ay xaamil u tahay gabadha. wixii la caayaba waxaan arki jiray dad badan, runti dadka Soomaalida si way u fiican yihiin, sina waa u xun yihiin. waxaa weeye qofka wax yar oo dhaliil hadday u helaan, waxaa weeye waxay noqdaan dad dabagala dadku way dabagalaan, kama daba haraan. qaybtood dadku isku mid ma aha Soomaaliyeed, but Soomaalidoo dhan yaan dhihin sorry. Soomaalida qaar waxaa weeye waa kugu caayayaan wax ilaahay awoodiisa ku jira, gacantiisa ayay kugu caayayaan. marka wiilkaas ma dhalo iyo balaaya tirinayeen iyo isagaa yiri ma dhalo way dheheen, bay hadda ka hor dheheen. balse waa kaa dhalayo dee hadda xaamilka loo yahay, maasha Allah tabaaraka Allah. waxaan arkaya qof soo qora oo yiri qof weyna ahay, ninka haddii uu gabdhaha yaryar uu ka dhali waayo, hadduu guursado naag weyn oo dhashooy ah buu yiri, oo dhashooy ah wuxuu ka wadaa hore usoo dhashay ilmo uu ka dhalaa, wuu ka helaa ilmo. waa wax caadi ah oo la ogaaduu ku leeyahay jiri jiray, ragguna ay raadin jireen. ragga qaar gabdhaha aan waxba ka dhalinaya jira, markuu ka dhali waayo naag dhashooy ah oo dhali jirtu guursadaa, saasuu ilmo ku helaa. marka dhashooy hadduu guursado iyo gabar hadduu guursadaba, ilmaha ilaah baa baxsho naag kuma xirna ilmaha. marka fanaankeena weyn heesihiisa waa ka xumahay in laga saaro
youtube-ka wixii uu kusoo tabcaayay ilaa weligiis in sidaa loo galo wallaahi ma jecli waa ka xumahay aada iyo aad sorry qamar suugaani fanaankeena weyn heesahaagana aadaan u jeclahay runtii heesaha waa iska daayay hadda balse heesahaaga marmarka qaarkood dhalinyarada waa iska taqaanaa way kuusoo tuurayaan waxay kugu soo tuurayaan whatsappka markaa shidid heesaha qaar inaba caadi ma aha mirahooda miraha waxaa ka daran codkaaga runtii niya waxaan ku dhihi lahaa markaan dhagaysta heesta jacayl dhaxal gala wax dhaama lawaa iyo heesta kale oo doonidii jacaylka labadaas heesoodba markaan dhagaystay waa labada hees aan runtii heesahaaga ka helay heesahaaga ninyaho waxaad ku fiican tahay heesaha slowliga la yidhaahdo muusiga slowliga la yidhaahdo maaragta slowly muusiga ayaa ku fiican tahay heesahaas ayaad ku cod wanaagsan tahay tan kale heesahan codadka waad bedbedeleysaa waxaa weye inta yar ee fanaanka aad tahay waa xilli yar baa fanaan tahay haddana maasha allah fankaaga inaba caadi ma aha saa codka u bedeleysid mar waa weyneyneysaa mar waad dhuubaysaa mar midhal baa ka dhigaysaa laakiin runtii heesaha slowliga ayaad ku fiican tahay music slowly musiga ah oo taangada lagu ciyaaro ciyaal suqad ha i malayninayaa soomaaliya marka heesahaas qaad heesahaas badso heesahaas inaa qaadaa ku fiican tahay ku cod qurux badan tahay runtii sida ninkan kale sidow maa la dhahaa fanaankii hore ee weynaa waxaa jira fanaaniin sidaada oo kale sida bonis oo kale heesaha slowly musiga ayuu ku fiicnaa heesaha calaacalka heesaha jacaylka dhabta ah tilmaamaya oo taabanaya wadnaha ayaa ku fiican tihiin intiinaas niyo heesahaasaad ku fiican tahay slowly musiga heesaha raabka kuma fiicnid waan arkay heesahaaga raabka camal ah ma cod xumid just laakiin waxaa kaga fiican tahay slowly musiga heesaha taangada lagu ciyaaro maaragta deganaanta labada qof oo isjecel runtii inay isku dhiimaan la rabo ya muxuu dhahay fanaankii axmed cali gaal ya wuxuu yidhi jirkeenu laacdamin uu yidhi ya allow yaa isku kaa marmara ma ahayd magaciisina wuxuu yidhi heesaha inaba ma aragtay dadka jacaylka isjecel sida dhabta isu jecel heesaha dareenka dareensiiye ayaa qaadaa marka slowly music qaad ayaan ku dhihi lahaa taas kaftankayga weeye aan ka baxo runtii waxay tiri rayaan bajaaj waxaan furay akoon cusub oo aniga aan lahaa ayaan siiyey marka waxay tiri sida la sheegay akoonkeedii siisay waxayna tiri samri iimaan allaha naga siiyo akoonkii maxaa la dhahaa qamar suugaani waa la jabsaday dad waxay leeyihiin xaaskiisi horaa jabsatay allahu aclam kolley ciddii jabsatay kolley isaga cidda taqaana baasworkiisa wuu yaqaanaa marka isaga unbaa sheegi kara isaguna wax uu caddeeyey uu sheegay ma jirto afkiisa kama hayno xaaskayga horaa jabsatay maasha allah waa nin xishood badan oo xishooda hadduu qaaqle ahaan lahaa mar hore u dhihi lahaa naagti xumayd baa jabsatay aan furay marka waxaa weeye wallaahi maasha allah waa nin xishood ku dambeeya weliba dhalinyaro ah dhalinyarada hadda joogta aan ognahay say gabdhaha u xumeeyaan say gabdhaha u galaan say u caayaan qaar aan cay lahayn xataa caayaan marka maasha allah qamar suugaani intiisa waa ku weyn yahay maskax weyn baa saaran maasha allah nin xishood badan weeye baan dhihi karaa marka ilaahay ha u sahlo waa inaan marka subscribe-na u wada saarnaa kulligeen ummadda soomaaliyeeday ha lagu boobo subscribe-ka qamar suugaani wuu u qalmaa
marka waxaa weeye qofkii ka qaatayna waa in lagala soo noqdaa subscribe-ka qofkii ka jabsaday maxaa la dhahaa youtube-kiisana waa in subscribe-ka lagala soo wada noqdaa saasaan dhihi lahaa waayo xaq ma aha runtii qof wuxuu kusoo dadaalay wuxuu kusoo dhibtooday runtii ma sahlana qof youtube intuu furtay ilaa iyo heerkaas uu ka gaaray inkastoo dadka qaar de dhaqso iska helaan subscribe-ka dadna ay rafaad iyo maxaan ku irahdaa dhib usoo maraan marka ummadda soomaaliyeedna waxaa weye waa iska dhib badannahay oo qaybbaa qabyaalad kuu fiirinaysa aan dhuuxayn hadalkaaga aan u dhaadhacayn aan waxaa ka hadlaysa fahmaynin qaybbaa maxaan ku idhahdaa iska kaa mucaaradaya marka wiilkan runta waa fanaankeena waa inaan qiimeynaa soomaalidana fanaan ma qiimeyno marka isagana waxaan leeyahay waxaasa israacraacinin shalayba waa hesha nin taalanti leh baa tahay fankaaga hore soo cesho heesahaaga hore soo cesho akoonkaaga haddaad soo ceshan kartid isku day inaad soo ceshatid dacwee qofkaas ha laga xiro xataa ka xir ku dacweyso saboodna waa inay ku siiyaan dadka haddaad sabood heshid waa ka guuleysan kartaa insha allah marka shalayba dadku way ku subscribe gareeyaan haddana kuu subscribe garaynayaan tan kale aan kula kaftamay hadda waad naaxday codkaagii hore inaa ku heesi kartid ma naqaano wallaahi marka waa ku salaamayaa adiga iyo xaajiyadaada waxaani leeyahay mabruuk baybiga caloosha niigu jira maasha allah ubaxa yaree cusub ilaahay ifka ha kala keeno iyadoo 4 indhoodoo nabaday dhahaan dadka hadduuba baybi cusub yahay marka ilaahay ha adkeeyaan leenahay hadda ilaahayna ha ku adkeeyo maasha allah tabaaraka allah mabruuk asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu